kudhawaad 350 qoys oo ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa maanta magaalada Wajeer loogu qaybiyay raashiin isugu jira dhowr nooc maadaama xilli abaar laga soo baxayo hay'adda Limdad Foundation ayaa maanta raashiinkani ku qaybisay magaalada Wajeer qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa u mahadceliyeen hay'adda maanta raashinka u qaybisay alxamdulillah shukru lillah onaga dad aan dhoolo lan cuuriyaan ee dhoolo abaanahay alxamdulillah wal shukru lillah waxa noo shaqeeya ilaahay uu mi oo jira male raashinkan maanta noo keenay alxamdulillah dadkii noo keenay ku ugu mahadina boqolkiiba boqol aan ugu mahad celinayna insha Allah biidhnillah karim dad iska tabaalaysan aan ahaan ilaahay khaarisi ilaahay aan maartay alxamdulillah ugu shukrinayna biidhnillah karim إن شاء الله وكم مهتسنتهن ومهتسنتهن أنت عريان من أش وأنهرست ومهتسنتهن هيدا مكتوب لك أنت ومهتسنته ومهتسنته الله وحقير قبعسي لا نمغير قبت الله سي أنت ماشي ليتو vulnerable people disability إن الرشير أو كنتي قال عرب أولا ده المداد foundation أكو إمانة oo inasiyan raashin yar inasiyan oo vulnerable and disability group aban ugu mahad celinayna wali waxa leenahay county government ayagana waa inay dadku soo gurmadaan national government waa inay dadku soo gurmadaan people are very hungry in Wajeer we need your input and assistance aan ku leeyahay governor Wajeer iyo waxaan ku leeyahay national government sidoo kale sarkaal u hadlay hay'adda Limdad Foundation ayaa sheegay in raashinkani loogu tirgalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba maadaama aysan haysanin cid u shaqeysa. But today's distribution is very unique in the sense we are targeting people with special needs, the most vulnerable of our community and our society who need our help right now, right at this moment. 350 people with special needs that will be receiving high valued food items. Si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horeysay oo hay'adda Limdad Foundation raashin ay ka biciso deegaanada Wajeer iyadoo maalinkii shalay ahaydna in ka badan 300 oo qoys ay ugu qaybisay tuulada Jawhar raashin Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ismaamulka Wajeer.